السلام عليكم كبل شاهان waxaynu caado u leenahay gabadha waxa ugu weyn ee aynu ku qadarinaa inay tahay maxay dabcan sida niyadiina ku soo wada dhacday hooyo inta heesood ee hooyo oo kaliya lagaga sheekaynayo waynu aragnay qof kasta oo afka kala qaada waxa ku hadaaqaya hooyo haddaba nidaamka feminismka iyo ideolojiyada ama aragtida uu xambaarsan yahay iyo nidaamkeena islaamka iyo dhaqankeena bulsheed maxay isku diidan yihiin ilaahay qabriga ha u nuuro ee cali ciisad begovic aqoonyahankaas islaamka ahi waxa uu ku xusayaa buuggiisa huruubi ila alxurriya hadal u dhigan sida tan waxa uu leeyahay ideolojiyadu waxay isweydiisaa sidee ayay dadku u nool yihiin maxayse ku nool yihiin diintuna waxay isweydiisaa wa ay dadka nooli maxayse u nool yihiin waana halka uu ka soo tafiirmayo iskhilaafka ka dhaxeeya diinta iyo ideolojiyaduhu oo waxa ay ideolojiyadu u aragto horumarka diintu waxay u aragtaa dibudhac iyo duudsi oo marka qofka ay wada eegayaan diinta iyo ideolojiyadu uma aragto aadame karaamaysan oo meeqaam leh ee waxay u aragtaa noole nool oo wax adeegsanaya oo gadanaya waxna soo saaraya oo aalad shaqaynaysa ah halka diintuna ay u aragto sidiisa aadaminimadiisa ah inuu karaamaysan yahay ereygan inagu soo noqnoqday ee ideolojiyad macnihiisu waa aragti habfakir gaara iyo falsafad gaara ka soo dhex baxday oo ay cidi soo kordhisay nolosha iyadu sida ay doonaysana u fasiraysa masalan dimuqraadiyadda shuuciyadda naasiyiinta faashistihii calmaaniyadda waxaas oo dhan ayaa ah ideolojiyado diintuna waa teenaas aynu naqaano ee islaamka oo dabcan dhaqankeena bulsheedna uu iyada taabacsan yahay ideolojiyadu waxay eegaysaa qofkani sida uu nool yahay waana sababta aad u arkayso iyadoo markasta dhalinyarada yiraahdo calmaaniyad baa sidan iyo alxaad baa sidan iyo dimuqraadiyad baa sidana marka laga hadlayo horumarka ay markiiba ku boodayaan daaro dhaadheer laamiyo gaari la wato yacni sidee qofkani u nool yahay ayay horumarka u arkaan diintuna waxay horumarka u aragtaa ujeeddada uu qofkani u nool yahay qaayada laga leeyahay laamiyada iyo gaadhiga iyo daarahan la dhisayo ayay iyaduna horumarka u taqaanaa oo dhammaan agabkan maadiga ee aynu haysanno waxay u aragtaa inay yihiin wasiilo iyo marin iyo dhabbo lagu gaadhayo ujeeddada iyo qaayada iyo higsiga ugu dambeeya ee ah karaamada bini'aadmiga iyo qiraalka ah addoonnimada uu ilaahay subxaanahu watacaala addoonka u yahay iyo cibaadadiisa oo ansaxda haddaba labadan fahan si aynu u soo dhoweyno aragtidu marka ay gabadha eegayso ama marka isha ideolojiyadaas lagu eegayo waxaa loo arkayaa noole u abuuran inuu shaqeeyo dhaqaale soo saaro dowladdu ay cashuur ka qaadato shirkadaha waaweyn ay wax ka gadaan bil kasta mushaharka uu qaatana dib ugu celiyo dowladda iyo shirkadaha waaweyn oo gebigiisuba u abuuran inuu waxuun iibsado oo uu adeegsado oo lagu dul noolaado halka diinteena islaamku marka ay gabadha eegaysana ay u arkayso noole halkiisa ku karaamaysan oo ku sharfan halkiisaas uu joogo inuu ku karaamaysan yahay shilimaad uu soo saarayana aan lagu qiimaynayn ee sidiisa meeqaam iyo milgo u leh walaqad karramnaa bani aadam waanu karaamaynay aadamihii adduunkana u jooga inuu raad wanaagsan kaga tago wax soo saarka ugu qiimaha badan oo ah qof noolna uu soo saaro si uu islaamku noloshaas gabadha ee ah karaamadeedaas ugu ilaaliyana waxa uu amray in fadhiga loogu adeego oo wax allaale iyo wixii ay u baahan tahay ninka ugu dhow ayuu ugu waajibiyey aabbaheed ama walaalkeed iyo ninkeeda ama wiilka ay dhashay yacni islaamku sideeda ayuu gabadha u maamuusay isaga oo aan cashuurna kaga doonayn in ay wax uun adeegsato oo uu wax ka gadana aanu doonaynin waxa uu amray markaa in nin kastaaba gabadha uu shaqeeyo oo uu fadhiga ugu adeego gabadhuna ay adduunka oo dhan u adeegto oo dadkii noloshan sii wadi lahaa iyo dadkii inaga dhaxli lahaa adduunkan ay soo saarto haddii aynu fahnay maxay ku kala duwan yihiin diinteenna islaamka iyo ideolojiyadahaas hadba dhan inaga soo galay oo ah ideolojiyaduna inay gabadha u aragto aalad dhaqaale soo saaraysa oo iyada iyo mishiinka niyuteelaha ama jabiska sameeya ay isku mid yihiin maadaama ay labadooduba sanduuqa dowladda cashuur ku kordhinayaan shirkadaha jeebkoodana ay lacag ku shubayaan islaamku waxa uu leeyahay maya ee gabadhu waxay qiimi ku leedahay inay gabar tahayba jiritaankeeda ayay ikraamo iyo maamuus ku leedahay halka ay ideolojiyadu ka sugayso inay gabadhu u soo shaqayso oo ay lacag ka dheefaanna islaamku waxa uu leeyahay iyada ha loo shaqeeyo oo haddii ay habeen gaajo ku seexato oo kii u shaqaynayay uu dayaco isaga ayaa laga xisaabinayaa waxaynu fahnay waxa ay doonayaan aragtiyaha dimuqraadi shuuci raasamaali liberalism calmaaniyad feminism iyo boqolaalka magac ee kale ee bulshadeenna waayahan ku cusub iyo waxa uu doonayo islaamku hadda weliba ku darso islaamku uma uu diidin gabadhu inay lacag shaqaysato oo ay wax soo saar iyo dhaqaale la timaado ee waxa uu sheegay in ay sidan kale ku habboon tahay oo ay sidan kale kaga wax soo saar badan tahay kagana qiimo weynaanayso oo 10 warshadood haddii ay gabadhu samayso hal qof oo ay dhashay qiimaha ay ku helayso ee ilmaheedaas yari uu haynayo 10ka warshadood uma soo saarayaan
dhanka kale marka aynu iska taagno hooyada isha diinta iyo dhaqanka markii lagu eegayo waxay qiimo ku leedahay kaliya inay hooyo tahay oo ayba qof nool adduunka ku soo kordhisay waa sababta loo yiraahdo afarta xaq ee ugu waaweyn ee qofka uu aadama ku yeesho saddex ayay hooyadu yeelanaysaa yacni afarta xaq ee ugu waaweyn ee uu aadama kugu leeyahay 75% hooyada ayaa kugu leh sababtu ma inay lacag ku siisaa ma inay shaqaysato oo mushahar badan qaadataa ma inay dowladda cashuur badan siisaa ma inay hantilo milyandheer tahayba maya kaliya waa inay hooyada tahay kaliya inay hooyo tahay ayay xaqa intaas lee kugu yeelatay markii fikraddaas ay diintu kaa dhaadhicisayna waa adigaa hooyada hooyanimadeeda ku qiimaynaya kaliya inay hooyada tahay haddii ay ku caydo haddii ku habaarto haddii ku disho haddii wax kugu dhufato wax kasta oo ay kugu samayso waa hooyo xataa afka ku celin maysid halka marka isha ideolojiyadda lagu eegayo la arkayo aalad laba adin leh oo lugaynaysa lacagna laga samayn karayo ama jidhkeeda ha la kireeyo oo lacag ha laga sameeyo ama ha laga shaqaysiiyo ama marba dhar arbishan inta loo soo saaro iyaagab la leeyahay isku qurxi lacag ha laga shubto ama dowladdu cashuur ha ka halabsato adigu indhaha islaamka waxaa lagu arkayaa qof ilaahay karaameeyey indhaha ideolojiyadana waxaa lagu arkayaa aalad wax soo saar ama warshad amaba mashiin lugaynaya oo robot aadame ah innaga oo aan meel shishaba uga doonin aragtiyahaas iyo ideolojiyadahaas maanta ina soo galay waxa ugu badan ee ay ku dadaalaan waa sida ay gabadhu u shaqaysan lahayd sida ay gabadhu lacag u samayn lahayd sida ay gabadhu guriga uga iman lahayd iyaga maxaa dana ee ugu jira markaas dantu waa inay badeeco badan shirkadaha ideolojiyadahan maalgelinaya ka gadmayso imise shay oo aanay nimanku isticmaalin ayay dumarku isticmaalaan u fiirso dharka iyaga markaynu dhinac isaga duro ee dharka aynu xisaabta ka saarno libis xamuurad bootar cidiyo baalal indhood shandad yar iyo boqolaalka kale ee qalabka ah ee aan hadda hilmaansanahay hablaha barnaamijka daawanaya commentiga inoogu darayee oo ay dheer tahay xaragadii oo aanay gabadhu jeclayn isku joog ay maalin shaqada ku timi inay berri ku timaado xataa kabaha intaas oo dhanba shirkadihii inay ka gadaan ayay rabaan gabadh gurigooda joogtaana intaas midna uma baahna oo laga yaabaa bisha dhanba 3-4 jeer inay suuqa u soo baxdo 3-4 jeerna qarash sidaas kuma baxayo macnaheedu waa shirkadaasi markaa inay kacayso gabadhu inay shaqaysato labada dan ee ugu jira markaa waa inay dhan alaabtaasi ka gadmayso oo ay suuqaan ciyaar ahayn ka helayaan dhanka kalena aanu suuqaasi istaagayn ee uu si joogto ah ugu furnaanayo si gabadha guriga looga soo saaro markaa iyada oo lagu sii gabanayo arrimaha xaqiiqada ah ee jira ee dhabta ah ee waaqica yaalla ee ah dayaca ay raggu muujiyeen dhanka kalena la nacsiinayo wixii ay ahayd hooyanimadu inay gabadhu hooyo noqoto oo dad ay soo saarto yacni qofka aadmiga ahi ama waxa uu noolaadaa ilmaha uu dhalay dartii oo beerkiisa oo dhulka lugaynaya sidii uu ugu tabcan lahaa ee meel u gaadhsiin lahaa ayuu ugu noolaadaa ama waxa uu noolaadaa naftiisa darteed haddii uu ilmihiisa heer gaadhsiiyo isaguna hadhow marka uu weynaado ilmihiisa ayaa kafaalo qaadanaya oo u halgamaya haddii uu isagu isu noolaadana maalinka uu gaboobo ayuu garanayaa goblanimadu waxay tahay ma jiro qof doonaya inuu goblan noqdaa oo isagoo goblana uu gaboobaa haddaba cali ciisad bogofiij oo buuggiisaas huruubi ila alxurriya ku xusayo qodobkan ayaa leh way sii yaraanaysaa tirada dhasha yurubiyaanka ameerika iyo sofiyeetku waxaana u sabab ah dibdhaca guurka istoocsiga ama anaaniyadda uu qofku iska dhaadhicinayo maxaan ciyaal ka dhalayaa waan iska raaxaysanayaa anaa isu noolaanaya shaqadan mushaharka ku soo gala uu badigiisu dib kaaga baxayo furiinka labadii waalidba inay shaqada u cararaan awooddii dhalmada ee labada qofba oo nusqaani ku timi maandooriyayaasha xanuunada taranka iyo iska soo xaadhista carruurta arrimahaasoo dhan ayaa u sababay taran xumada waxuu aqoon-yahankani sidan lahaa 1988kii waa dhowr iyo 30 sano ka hor waxaan ku soo koobaynaa gabadha waxay karaamo ku leedahay ma aha shaqadeeda mana aha cashuurta ay dowladdu ka hesho mana aha agabka ay iibsato ee waa hooyanimo xataa haddii aynan istiraahdo faan waxa koowaad ee ay soo qaadanaysaa waa inay hooyo tahay haddii gabadh la xumeeyo waxa koowaad ee damiirka lagu baraarujinayaa ee la isxasuusinayaa waa hooyo inay tahay ugu dambayn adigu daawada marka aad hooyadaa eegayso dabcan waa haddii ay hooyo nooshahay hadday dhimatana ilaahay godka u nuuro naxariistiisa ka waraabiyo markaad hooyadaa eegayso ma waxaad aragtaa noole karaamo iyo ixtiraam kaa mudan oo aad cagaha ka dhunkanayso keliya inay hooyadaa tahay uun mise waxaad aragtaa mashiinka lacagta ee biilkaaga iyo nusu saacahaaga aad ka hesho maalinkaad ka weydana aadan ahmiyadda siinayn yacni lacag socota miyaad aragtaa iyo shaqaale adiga kuu adeegaya mise qof inuu ku dhalay oo hooyo kuu yahay ixtiraamkaaga mudan sama indhaha diinta marka lagu eego ayay gabadhu ku qurxon tahay oo maqaam ku leedahay mise indhaha ideolojiyadda ama si kale haddii nuu soo dhaweyno war ninkan gaalka ah ee maanta ordaya ee xuquuqda dumarka lewan u hadlaya ee hablaheena dibadii ka soo riixaya ee xuquuqda dumarkana ka bilaabaya hala shaqaystiyo siyaasad hala galo hooyadii waxa uu arkayay mashiinka lacagta soo saaraya maalinkii uu sidaas u arkay inay hooyadii howlgab tahay oo ay gabowday oo aanu lacag ka helayna
guriga duqayda ayuu geeyey innagana inaguma jiro qof ku fekeraya maalin maalmaha ka mid a hooyadii inay dayacanto waa ideolojiyadii diinta fikradda u dhaxaysa waa intaasun war inagoo dhibaatooyinka dhexdeena yaalla xallisanayna hableena waxyaabaha khaladaadka laga galo ka diinayna oo xallinayna oo aan diidayn khaladaad fara badan inay jiraan haddana de wuxuu gaal nagu shubtay inaan la soo yaacin. wassalaamu calaykum.